رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترحب سابنا صيامنا ما بنلعب. مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار نتآلف نزور كل جار ننفق صدقة ليلة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فقد قال الله في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وفي حديث فقد أخرجه الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة صدقة في رمضان. أولا أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تحيي ولا بشارة سوء waxaan ugu soo fudla bishii barakeysaneed ee Ramadaan ee aan garanayno ee sanadkii hal mar soo gasha bishaas oo fadligeeda aan soo koobi karin waxaan meeshan u soo istaagay inaan bishaas aan u diyaar garowno awalan tan waxaan gud ka ahay ururka Soomaaliyeed ururka horumarinta ee Soomaaliyeed aan ahay guddiga samafalka iyo dugsiyada quraanka ee ururka wad maanta u taagan waa inaan soo saacidaan hoo iyo hiilo sadaqada yaraan ma gasho timir jeexid Allah ka dhigay sadaqada wax la bax rasuulkeena alayhi salaam. marka waxaan u taaganahay inaan dadka danta yar ee duruufta ku muuqato inaan anfurino barnaamij anfurin aan u sameeyno iyo ciideysigooda dadka macna ciida aan gada karin oo aad duruufta ugu muuqato inaan ciideysigooda markooda ciida aan aad farxino afurkooda aan farxino si macnaha anagana maalin ahaan ilaahay oo naga farxiyo oo naga diliyo jandiisa. Ramadaan waa bil fadligeeda iyo khayraadkeeda aan la soo koobi karin waa bil mudan in laga faa'iideysto waa bil raxmadeeda barakaadkeeda khayraadkeeda oo shubmayo sidii roobka oo kale runtii waad qasaartay haddaadan ka faa'iideysanin. waxaan ugu baaqayaa dadka jira dibadda iyo dadka jooga dalkaba inay taageeraan Soomaali weyn ururka la magac baxay ururkaas oo ah waa mar walba u taagan sidamaan walaalaha muxsiniinta ah ee dibadda ku nool ee muttaqiinta ah. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا وحي أظهر مرستان أو من خير تجدوه وحد كهلسان من عند الله إلهي أكتيسا. فقد أخرج الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنس أتقانين خادم كرسولك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صدقة في رمضان. صدقة وحا ugu fadli badan sadaqada Ramadaan kala bixiyo. من
man fatara saa'iman kaana lahu mithlu ajrih ninkii anfuriyo qof sooman wuxuu leeyahay saa'imkaas ee soomaa oo la anfuriyey ajirkiisa mid la mid ah asagoo laga naaqusinaynin. marka sadaqaadka maalmaha kale la bixiyo ayaa sadaqaadka bisha ramadaan la bixiyo farqiga u dhexeeya muxuu yahay? farqi weyn ayaa u dhexeeya. sadaqada ramadaanka ayaa fadli badan oo labalaab ah, waa labalaab. marka aan ka faa'iidaysano ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu yihi waaxsinuu wanaajiya ina allaha yuxibu lmuxsiniin, ilaahay muxsiniintana wuu jecel yahay. aayad kale ayaa waxay leedahay ina raxmat allahi qariibu min almuxsiniin, raxmadda ilaahay ayaa qariibun u dhow min almuxsiniina, muxsiniinta ayay u dhowdahay raxmadda ilaahay. ina allaha ilaahay yuxibu lmuttaqiin. aayadaha qur-aanka haddii lasoo qabsado sadaqaadka iyo dadka wanaagsan haddii laga sheekeeyo maanta o dhan waa la fadhinayaa. marka insha allahu tacaala waxay noo bilowday aruurintii sadaqaadka u diyaargalooweynay bishii ramadaan ee barakeysneed, sida macnaha ugu barateen ururka samafalka ee Soomaali weyn sanad walbo inuu qabto barnaamij anfuri walaalkaaga muslimka ah waxaad awoodid. marka walaalaha muslimiinta ee dibadda ku nool gacanba gacan jiida, marka inaad garab siisaan ururkan la magac baxay Soomaali weyn ee samafalayaasha ah ee mar walba u taagan dadka danta yar ee duruufta ka muuqato, inay mar walba macna ay garab siiyaan. haddee tahay waxbarasho diini ah, haddee tahay daaweyn oo macnaha xagga macnaha daawada ninka daawa aan oo jirin oo daawada aan baxsan karin haddee tahay. marka insha allahu tacaala lambarka shaashada oo idinka muuqan doono insha allahu tacaala nin walba xad awoodi kusoo dir. hooshii way bilaabatay meel dhexeena meel fiican ay sii maraysaa insha allahu tacaala. waxaad dirsanaysan u niyeyso, haddii caafimaad tahay caafimaad u niyeyso, haddii waalidiintaada ka dhinteen oo macna ay jiraan u niyeyso. dad ilaan qof aad ka dhiman ma jirto. haddee tahay aakhirada ilaahay radaha ilaahayna ku raadinaysid, haddii ilaahayna inuu ku gaarsiiyo macna aad u niyeysanaysid bisha barakeysan aad darteed wax baxsanaysid, haddee tahay dhan walba ay ahaato bisha haddaad gaarto na sadaqaadka labalaab inuu ahaado ayaa wanaagsan. laano bisha waa bil sadaqaadka, qofka sadaqaadka la baxo barakooyinka ay u da-ayaan, kheyraadka ay u da-ayaan sida roob oo kale. waa bil mudan runtii ninkii ilaahay soo gaarsiiyo in laga faa'iidaysto. marka nin walba oo muslim ah waxaan ugu baaqayaa bishaas fadliga badan ilaahay hadduu kusoo gaarsiiyo inaad ka faa'iidaysato, waana bil in laga faa'iidaysto mudan. garab baa idinka rajaynaynaa inaad nagu garab siisaan insha allahu tacala, nagu taageertaan. wax laisku garab siiyo waxaa ugu fiican kheyrka in laisku garab siiyo. marka ilaahay qur-aankiisa ayuu ku dhahay watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan. watacaawanuu isku kaalmeeya cala albiri wanaaga oo samafalka ah iyo wataqwa alla ka cabsiga, walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan. colaytanka iyo dembigana ha isku kaalmeynina. marka mar labaad iyo mar saddexaad ee kun jeer waxaan idin leeyahay soo taageera walaalihiina muslimiinta ah ee samafalayaasha ah. soo taageera. وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.